كم هالعلنا يا سحلقان كايو دفاع عددكين يدلكين وسوي شيء وكورق مالها إنها تكشرتين هالقل هذا ولا حاجة يكوتكتين وهاد ساعتين وعن سلايا هاي ما أنت تذكر اللي يبغوا ذي هني كرايو واحد قبنا إنسانية واحد كسر إنسانية رأيكينا عبر إنسانية واحد كشقين إنسان وواحد دتكين يدلكين إذن كأيدي سويان إذن كتشيفان وصاك أمني قادتكو أي هستانية كل حولو كرم هذين إني دتكو ديان هذا إذن سو ديان سو تشيد كيني إذن كحقبت كيني وحبضن صامين تهدا يلوكولا أدبان إذن كيوم هذين يا وحنا لا شغفي عمل قوته إذن كي مسؤولين تيني تليها أيضا تليها قوتها نلا شوية وإن لوضوا بها يعني dadkii shaqadan iyo qaybtooda ku lahaa waxaan sugayaa waxa la yiraahdaa maamaha ciidan ku leeyahay oo ah difaac midka ugu fiican waa weerar inaan hadda difaac badan ku jiro oo la joogo oo la fadhiyo inta weerarka inaga soo gaaraysa ka yaraanaysa inta difaaca naga soo gaaraysa طبعاً هذا وحنا قلنا وحنا بينا نديار قالوا لنا نقلها صميم ديجانا إن هنسافره بد كأنه أي هلان سحر رياضة ومضح بالله إنه ماشي روان لو صعدان ديان كروان أي تجانا دينا هيدا تعصب معنا هذا وياي هالقل كان إنه نقلنا هالقل ربح وعم بالله بينه وإن بضبه وحكاه اللي هالقل لكن ما أنت aan ku talagelayna inaan isku tashano sababtoo Soomaalidu waxay tiraa cidna uma maqna ceellaha uma fadno inaga iyo ciidanka idin la deganiyo ku walaalaheen ama soomteena la shaqeynaya dagaalkeena gula jira inaan hawlgal aan leenahay aan ku talagalay hadii Ilaahay idhaa marka ugu dambaysan haday noqoto xataa kaliya inaan hawlgal hadii Ilaahay idhaa waa inuu deegaanada naga maqan caasimadii ay ka mid tahay dhulkii waa gacanta ka maqan waxa go'aanka noo yahay inaan isku tashano hadii Ilaahay idhaahdo sida ugu dhaqsaha badan hawlgal aan isugu diyaarin dhufayska intaan ku jiro intayna soo gaadhay kollabayna ma soo gaaraysa hadayna hawlgal taa marka waxaan idinku imid oo maanta nasiib ugu yeelataan idinku ugu horeysaan inaan rabo inaan idin sheego waajibaad hawlgal ah oo aan hadal ahayn inaan galayna hadii Ilaahay idhaahdo qof walbana uu diyaar garoobo deegaanadan tagayna iyo sida loo hawlgalayo iyo nooca wax loo qabanayo iyo dalkeena iyo dadkeena sida wax qabadkiisu uu noqonayo hadii Ilaahay idhaa waxaan in badan isku taxallujinayno suugaynay in bal dawladda federaalka iyo AMISOM iyo international community war dagaalkan si afdheeraaday ee si daba dheeraaday ee jiitamayay inta in leeg inuu lagu gaarin aan hawlgal sameeyno 4 sano waxaan ku jiraa waxa la Juba corridor Jubada dhaxasada loo xoreynayo iyo deegaanada la qabanayo socodkiina wuxuu noqday mid aan sariir raatoona lahayn kalaam hadal sheegaya u batay laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah inaan cidana raacaysa way naga daba iman doontaa hadii Ilaahay cidana raacaysa iyada ay naga daba iman doonta waa deegaankeeni Soomaa waa dalkeeni Soomaa cid kale wax ka sugeynaa ورمعت كلام زوينة أنا قاعد أسكت تشارعنا إن شاء الله تاسع روا مركا إن الساعة قادتها ورد سوق قاري مانتا أنت بدأ ورد اللي تشوفينا ظروفها يا واحد ده وتكسم رئيسين واحد بدنا يدي صامر لكن وحنا تشيني إن شاء الله هنا مركز تو ديجانا دين يسافر عشان يصعد كان يجرو لرشان ينقالها عيدا كان واحد ويسوي أكثر أي شعب كان صاحدا إنه يجري الشعب كأنه بينه يجري يبيله ما بقول حاجيات كتير معنا مرة دي على تجي dadka wadarkiisan qaylada waxa ka yeelayaan xageed nooga tagaysan iyana naga tagay marka tagi doono waan tagi doonaa deegaanada waan joogi doonaa aad baad u mahadsantiin insha Allah waan kulmi doonaa saraakiisha wixii waajibaadana iyaga kala qaadanayna
deegaanka inuu yahay deegaan nabad oo madaxweynihii Jubbaland uu joogo oo saaka arkaysay in badan lagu heshiiyo oo magaalada ku marayay asagoo shaki amni waxba aan ka cabsanin tan kale nabadgelyada aan wax yar ugu noqonayo nabadgelyada in waa sugunta amniga in waa la isku haleyn karaa wax cilad kama jirto furin maaha inta dadka furin bay wataan laakiin furin maaha booska ismaaciil kamid ay limataa markii loo fiiriyo nabadgelyadeeda waayo ilaahay ma had iskale ciidamadaas iskaashaday waliba aan kuweena awood siinayo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin boqolkiiba boqol aad bay u mahadsan yihiin